soo barlamaan ma jirin Hargeysa haa soo xukuumad ma jirin haa soo intaasoo dhan ma jirin haa soo ingiriiskii kama bixin dalkaas oo ma noqon dal afrikaan oo xuroobay oo maamulkii ingiriiska ka baxay ma aha haa oo waxa kaloo ka maqan soo boqoradu ma aysan bixin proclamation oo ma dhihin maanta suukaana dambaysa xuraa tihiin siyaasiyiinta reer Puntland hadda ninkan odaga uu sheegayo wuxuu ku maagayaan sidee u oran kartaa Somaliland markay ku beerayso Soomaaliya waxay ahayd dawlad madax bannaan midaasna qof kasta oo og tahay taariikhdaasna meel kasta oo ku qoran tahay dadka waxay yiraahdaan siiba reer koonfurtu wadhood maraan ka sheegay inuu garowe jooga aan marti u ahaa qolyahan BDRC-ga yani arrintaas soo qaado waxaad u moodaa inay xoogaa polemika kicisay oo dadkii meesha joogay siiba siyaasiyiintu inay kaceen markaan iri waa qalad fikradda ah in Somaliland and British Somaliland inaysan ahayn dawlad xura marka ay midnimada saxiixayaan ama midnimada ogolaanayaan xamar markii aad ogeydeen dagaalkii Majeerteeniya kadib Talyaaniga lala galay oo dhulka kaniisadahan iyo fiisha goboorna iyo dhulka ugu muhiimsan ee Muqdisho dhulkii dadkii lagu dhisay maxaabiistii Majeerteeniya laga qaaday bay ahayd bismillaah saaxiib marka hore soo dhaw marka xigta muuqaalkan fagayso meel fog gaaro kulan ciwaankiisa laga dhigay nabadda ayaa cishooyin kor waxa lagu qabtay maamulkaasi Puntland kulankaasi qabanqaabadiisa waxa la ahayd hay'adda BDRC oo maamulka Puntland u qaabilsan marnahaabinta taariikhda iyo sooyaalka Soomaalida dawladda Djibouti waxaan u kala qaadayaa dhowr marxaladood gobollo waxa yaala aragtida ah dawlad xoogan oo dhexe gobollo waxa yaala aragtida ah nidaamka federaalka gobollona waxa yaala aragtida ah in wadanka la kala gooyo waxaa jirta oraa Soomaalida tiraahdo timir balafa ku jirta hadda barnaamijkaani BDRC mawduucyo lagu soo gudbiyo waa timirtaasi lafta ay ku jirto kulamada la qabanayo kulamadaas waxa lagu soo casuumayaa marti laga soo xusho deegaano kala duwan laakiin ujeedka laga leeyahay kulankaasi ay tahay mid laga leeyahay dana siyaasadeed saddexdaana waxay u doorteen waxay tahay si fudud ay u gudbi karaan saddexdaasi fariinta loo soo dhiibo sida caadiga markii la rabo in la wacyi geliyo ummad waxa loo adeegsadaa journalistayaal siyaasiyiin iyo aqoon-yahano marka hadda barnaamijka loogu magac daray cilmi baarista hadafka laga leeyahay waxay tahay in wax laga bedelo taariikhda dadka iyo deegaanada la isku oran jiray shantii Soomaaliyeed ninkan wuxuu ka mid yahay martidii ay casuumtay hay'adda BDRC oo maamulka Puntland u qaabilsan marnahaabinta taariikhda Soomaalida ninkan isaga noo sharxi doona wax walba si uu aan hadalkiisa u dhageyso wixii fikir ahna qaybta hoose kumatiga ku reeb heshiiskaas act of union aad ku sheegtay inuu sida aad u sheegtay u qoraa wuxuu ka hadlayay laba state midna la dhihi jiray former British Somaliland midna la dhihi jiray trusteeship country yaa heshiiyey taas waxay ku tusaysaa marka in heshiisaas uu dhex mari karo laba entity oo siman oo labaduba ay leeyihiin madax bannaani iyo sovereignty ay leeyihiin yaa isku darsamay dadka waxay yiraahdaan siiba reer koonfurtu wadhood maraan ka sheegay inuu garowe jooga aan marti u ahaa qolyahan BDRC-ga yani arrintaas soo qaado waxaad u moodaa inay xoogaa polemika kicisay oo dadkii meesha joogay siiba siyaasiyiintu inay kaceen markaan iri waa qalad fikradda ah in Somaliland and British Somaliland inaysan ahayn dawlad xura marka ay midnimada saxiixayaan ama midnimada ogolaanayaan xamar markii yimaadeen waxa cilad looga dhigay Maxamuudow waxa waaye wax iska sahal ah oo aan macno lahayn waxay ku leeyihiin bandiire ma aysan lahayn calan ma lahayn calan waxba ka dhibi maayo la'aantiis hadday rabaan daqiiqadii ay ku samaysan karaan mid hal iyo nirig qaanso iyo halkii kale waxbay samaysan kareen laakiin iyagu marba haddiiba ulajeedadooda weyn ama siyaasadda ay ku shaqay jireen ay ahayd in lala midoobo southka waxayba hore u qaateen ugu ogolaadeen calankaas xidigta shanta geesood leh oo ayagu ka mid yihiin u qaateen marka tii in difeeto looga dhigo oo nusqaan looga dhigo oo la yiraahdo dowladnimadoodii wax u dhimaysaa anigu waa diidanay meeshana xoogaa polemika ka kacay intaan garow joogay
aniguna ma qarin ilaa waa arrin weligay igu taagneed oon dhowr goor wax ka qoray waxaan idhahaa war soo barlamaan ma jirin hargeysa haa soo xukuumad ma jirin haa soo intaasoo dhan ma jirin haa soo ingiriiskii kama bixin dalkaas oo ma noqon dal afrikaan oo xuroobay oo maamulkii ingiriiska ka baxay ma aha haa oo waxa kaloo ka maqan soo boqoradu ma aysan bixin proclamation oo ma dhihin maantaas ukaana dambaysa xuraa tihiin sifadii aan meeshaan ku joognay oo protectorate-ka ahayd waa dhammaatay soo lama dhihin haa so act of union lama samayn oo laba dowladood iyo laba entity ka hadlaya haa taas waxa ka weyn rabti maanahan anigu ku doodayay laakiin xataa meesha waxaa ka yeeraysay habeenkii aan hadalka jeedinayay tan haddaan ogolaano fikradda aad in ciise turunji aad waddo haddaan ogolaano waxaan dhiiri gelinaynaa kala go'a siyaasiyiinta reer Puntland hadda ninkan odaga uu sheegayo wuxuu ku maagayaan sidee u oran kartaa Soomaaliland markay ku beerayso Soomaaliya waxay ahayd dawlad madax bannaan midaasna qof kasta way og tahay taariikhdaasna meel kasta oo ku qoran tahay midaan kale waxa ku dhacday kol sii horeysay oday kale barnaamijka laftigiisa marti ku ahaa dooda miiska saarna waxay ahayd isla doodani ah xorriyadii la qaatay 60kii iyo jiritaanka dawladnimo Soomaaliland Soomaaliya koonfureed ama maxaan ku raadtaa dadka Talyaaniga ay madoobayeen waxa xoga aad ugu adkaysay dawlad bay ahaayeen kelmadana ma aaminsanin ana reer waqooyi ah sababtu tahay haddaanu jirin calan sharcina jirin heshiisna jirin hay'ad dawladeedna jirin waqti ay ismaamulayeen aanu jirin sidee dawlad u ahaayeen kelmadan rabnaan aad runtii soo dugtaagtay oo mahadsantahay horta qofka shakhsiyan waxa uu nici karaa waxna weydiidi karaa waxna uu dafari karaa laakiin taa micnaheedu maaha mid ka tarjumaysa xaqiiqda hadda fashilka dawladnimo ka jira Soomaaliya ama dhulka la isku oran jiray Soomaaliland ay tali waxa sabab u ah fashilkaasi qolyaha majarteen ama Puntland ayagoona aqoon fiican oo lahayn nidaamka federaalka ay Soomaaliya keeneen nidaamkaasi federaalka oo xitaa aysan faham buuxa aysan ka haysan nidaamkaasi federaalka dadka degan koonfurta Soomaaliya midaas waxa laga dhaxlay halka maanta ay joogto Soomaaliya waxay keentay reer kasta inuu samaysto isaga calan u gaar ah gaarigu markuu soo wadin darawal buuxa gaarigaasi waxa hubaal ah marka ugu dambaysa inuu galayo shil hadda marka qolyahan majarteen waxay la mid yihiin darawalkaas oo kale dadka hoggaanka u yihiin Soomaaliya noqoto ama Puntland noqoto waxa hubaal ah marka ugu dambaysa inay boholay ka tuurayaan aad ogeydeen dagaalka majeerteeniya kadib Talyaaniga lala galay oo dhulka kaniisadahan iyo fiisha goboorna iyo dhulka ugu muhiimsan ee Muqdisho dhulkii dadkii lagu dhisay maxaabiistii majeerteeniya laga qaaday bay ahayd soo soco dhaqan bay u lahaayeen dadkani waxay lahaayeen wax aanay doonayn inaan lagu khasbin cid aan doonayn cid aanay iyagu doonayn inaanay xukuumin wax aanay doonayn